بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore waxaan salaamayaa walaalkay Cabdi Xafiid iyo culimada sharafta leh ee maanta aan la kulanay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bariyay waqtigaas ay geliyeen ilaahay miisaanka xasanaadka dhamaadka Allah noo saaro xaqiiqatan haddaan dhahno maanta waxaan ka sheekaynaynaa duruufihii iyo taariikhda dib ugu soo noqono waxaan filayaa barnaamijkan nagu filnaanay aniga waxay la tahay Soomaaliya marxalad khatar ah maraysa marka hore la isku waafaqo marxaladan amarayna inay tahay marxalad xasaasi ah nacam dadaal waa soo jiray waxa kaliya oo aan haysanay oo maanta aan ku faanayno adduunka nagu amaanay waxay ahayd in ala aqal an madaxweynayaal isbedelay oo xukunku isku wareejiyay gacnaha is haasteen waa waxa injaasaadka karo ala aqal waxay ay qabteen talaabada maxaa yeelay shacbiga Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin haddaan su'aashaada ku soo laabto waxay u baahan yihiin nin madax aan been u sheegaynin u baahan yihiin aan been aan sheegaynin maxaa dhacay waxaan aragnaa madaxda soo dhaafta dhanba ballan qaadiye galeen ma fulin kan hadda jooga ha ugu badnaadeen laftigiisa marka culimada sheekheena wuxuu sheegay Sheekh Maxamed Idris Khayr Allah siiyo siyaasiyiin ayaa waxaa moodaa inay god kala dhacayaan ummadii marka anaga hadda culimo nahay maadaama aan nahay dadka tawjiihaha waajibkeena wuxuu yahay inaan shacabkan u sheegno aan u finno waxay qaadanayaan inay naqda marka qofkay dooneen beentana ummad lagu hogaamin karo nabiga kaleey salaatu salaam xadiiska aad garanaysaan oo ay nabiga kaleey salaatu salaam yiri salaatatun la yukallimuhum Allah saddex ilaahi lama hadlaayo yawm al-qiyaamah wala yuzakkihim wala hum cadaab alimkaas waxa kamidha malikun kadhab marka inaan iska ilaalino shacabka inay dooranin been ah ee qofka ay kula xisaabtamaan muxuu yahay waxa ka sidoo kale nin waxay u baahan yihiin hoggaan waxay u baahan yihiin shacabka oo ah ilaaliya waxa lagu heshiiyey waa muhiim way maxaa yeelay aayatul munaafiq nabiga kaleey salaatu salaam riwaayada salaasa markuu yiri riwaayada kale arbaca uu yiri waxa kamid ahayd ida wacada akhlaf qofka inuu ballanka u qaado ka baxayo saas daraadeed waxaan aragnaa siyaasiyiinta anigoo kala saareenin ballamada ma fuliyaan marka shacbiga yaa la wareerinin oo ayaa laga dhigin hadda Sheekh Awluujis khayr Allah si sheekheena saaxiibkay wuxuu leeyahay injaasaad ay qabteen dawladaha soo dhaafan injaasaad waa qabteen laakiin anaga waxaan rabnaa inaan ifino injaasaadka qofka asaa sheeganay asaga wuxuu qabta sheeganay laakiin anaga waxa waa mowqifka dacafka ah ayuu u sheegaa qofka markuu xukun rabana mowqifka daciifka loo sheegaa maxaa yeelay abaadara culimadu waa iga qoon badan tahay markii la weydiiyay abaadara wuxuu yiri markuu yiri istacmilna ya rasuulullah ani idib jagay idib markuu ku yiri wuxuu yiri daciifa tahay dacfigaas waxa la jeedaa ma aha inuu taqwadiisa xun tahay laakiin waxa weeye waxay u baahan tahay hoggaanka wuxuu u baahan tahay azimi u baahan tahay ninka hoggaamiye naqanayo wuxuu u baahan yahay shacbiga wuxuu u baahan yihiin nin maslaxada ummadda ka hormarinayo waxaan aragnay inta badan oo xukuumadda hadda la ridaayay oo tantii ka horeysay dawladii ka horeysay waxyaaba lagu eedeeyay waxa kamid aha Ethiopia gacanta noo gelisay oo ayaa lagu eedeeyay waan wax muhiim ah qofka muslimka inuu ku xisaabtamo inuu qofkan uu naqdo qof mustaqil ah oo kaliis xukunka haya aan naqanin laakiin markii kale ka dambeysay waxaan aragnay inay dawladii ajaanibta dham ee tala ah xalana wax ka bedelin marka meeshii joogan qolada xalana waxa lagu wareeriyaa kaliya sidoo sheegay sheekha fastaqafa qawmuhu fa ata'uhu masawirad madaxweynaha wadanaa markii iimaana gurbana la garaaca war Soomaaliya taas uma baahna Soomaaliya wuxuu baahan nin ballanta fulinayo shacbiga wuxuu baahan yihiin nin ballanta qaada fulinayo waxay hayeen waxay ku waafaqeen ummadda ay ku hayn kara waxa kala ka soo horeysa ugu muhiimsan waxa la yiraahdaa shuruuda leedahay wilaayada sideeda laba shuruuda asaas u ah oo nabiga kaleey salaatu salaamna oo ku sheegay xadiiskiisa oo ku sheegay waxa kamid ah inuu dhahayay innaha qisjun yawm qiyaamah markuu nadaama markuu yiri ayuu wuxuu yiri illa man akhadha bihaqqiha illa man haqa bihaqqiha wa muhiim in la xasuusiyo madaxda hadda joogtay kuwa soo socdaba xukunka xaqiisa lagu qaadan waxa kamid ah in dadka raali ka yihiin waxa ummadda lagu wareeriyay lama mas'ala ah doorasho cud aan rabnaa dad bana rabnaa war mas'alada ma aha doorasho cud waan u baahannahay laakiin 4 sano haysay ma diyaariyay waa in lagu xisaabtaa dawladdan 4 sano ay haysay injaaska kaliya lagu faanay waxay ahayd ra'iisul wasaaraha aniga ma bedelin haddana waqti ugu xumeed oo qaado qoyseen kala taarnaa ra'iisul wasaaraha la bedelay 3 sano inaa soo amaanaysay waa dhahaysay waa fiican yahay maanta haddana inaa bixisid iyadoo weli marxalad xaraj la marayo waxay daliil u tahay annaga waxa moodaa taladeena gacanta kuma jirto taladeena meel baa laga xukumaa dawlado kale ana xukuma marka
ninka Soomaaliya hogaaminaya waa hada nin oo oday dhaqameed sidoo madaxweynaha markuu doorashada galay sheegay uu yiraahdo oday dhaqameed naqanaya oo u tago dawlad goboleedyada oo la heshiyo ummadda Soomaaliyeed kaasina gaalada ka cabsadaan ninka markuu dadkiisa oo ka haasto sanad markuu ka haasto gaalada way ku ixtiraamayaan laakiin marka aad dadkaaga la dagaashid adiga oo aad gaalka soo dhaweysatid maanta amal ku dhigaya taasna ummadda faa'iido ugu jirto oo waxay noqonaysaa baxdo walidaalika nabiga calayhi salaam ducada ibraahim nabi ibraahim markuu duceynayay oo noo duceeyay waxa kamid ah wab'ath fiihim rasuulan minhum maxaa kamid ah wab'ath fiihim rasuulan minhum maxay tahay waxa la rabaa shacbiga inay jecel yihiin oo dhaxgalay laakiin anaga maxaa waxaan aragnaa ma arkaan shacbiga lama fariisto madaxweynaha ma arkaysan shacbiga iyagoo fadhi u qabanaya ma arkaysid meelay ku xiran yihiin waraysi wax ma weydiin karaan waxaasna caburin iyo waxbaa socdo marka taas natiijo noo ma aha xaqiiqada haddaan rabno haddaan culimo nahay naseexa diintan ay tahay naseexada waxay tahay inaan shacbigan aan nidhaaho war ninkaad dooranaysiin nin owrkun iigu kacsanayo naqanin ninka madaxdaana waxaan leenahay inuu naqdo war nin ilaahay subxaana wa tacaala shuruudiisa ka aaminan inuu yahay aamin inuu yahay saadiq alwacdi inuu yahay oo run sheegayo inuu yahay nin walaayada xaqeeda ku qaadanaya xoog ku qaadanaynin maxaa yeelay walaayada ninka xoog ku qaata ilaahay kuma kaalmaynaya sida xadiisku noo sheegay haddii aad xataa doorasho been aad samaysid ama madaxa ku shubatid oo aad ku soo baxday xataa ilaahay kuuguma kaalmaynayo marka waxaa fiican ilaa an yaakhud bixaqiha qofka inuu xaqeeda ku qaado oo shacabka loo soo celiyo ay shacabka ay yidhaahaan maxaa qabanaya soomaalida waa u baahanaa cod iyo qof inaan gaarno maxaa yeelay dastuurkan haddana lagu xukumayo anaga codkayga lama weydinin wuxuu u baahan yahay istiftaa in la geliyo dawlad dastuurkii lagu dhaqaayo aan shacbigeeda la weydinin ayaa waxaan leenahay cod iyo qof aan rabnaa war wax laga shaqeeyo oo aan dhahno haddii aad adiga qabo weyso jaaniska dadka kala sii cala alaqala halka yar aan isku haysan oo ah inaan xukunka isku wareejino oo aan ummadda aslawdan taas waa inaan dawladda oo cid kasta la joogto oo sheekheena maanta la taliya la ah inuu u naseexeeyo oo saas oo kale loogu sheego oo shacbigana ay naqdaan waxa Soomaalida warka waa iska maqashaa ilaahay waxaan ka baryay marka oo ku soo naqon doonaa laakiin kalimadan dheereey rafad raalaha insha Allah